مظاهراتك وسبدي ولحي توان حشقنا شيء تومان دتكيسه maxaa ku dhacay waa dhamaaday annaga asaga isku mid ah wixii shalay magaalada ka dhacay dadka Soomaalidu way arkayeen annagana qoraalan ku sheegnay labada saaxiibadayna way faahfaahiyeen laakiin waxaan rabaa in dul istaago wax dayni la ka dhacay oo ah muwaadin Soomaaliyeed in si kas ah ciidanka dawladda gaar ahaan booliska ay u toogteen oo taliyay meeshaas joogana amarka uu bixiyay xilmaalid faa'iiso goobjoog ahayd ayaa ka warrami doonta laba kana lagu dhaawacay dad kale oo dhaqdhaqaaqayaal ahne halis la geliyay shacabkaas deegaankaas la socotiin in badan waxay loolan iyo iska caabin adag kula jireen dhulboobka waxay ahaayeen deegaanka keliya oo nidaamsan oo guddiyo iyo aragti iyo abaabul wax isaga caabiye leh oo deegaanka dadka shacabka iyo odayaashooda iyo qaar ka mid ah xildhibaanadooda kulligood ma dhigi karo ee isku duubnaayeen oo iska caabinayeen dulmiga barakicinta dowladda oo ama taliska oo madaxweyne xashiq hogaamiyo waxay ay u arkayeen inay halis ku yihiin inay dhiirigeli karaan deegaanada kale si gooniya markasta loo target gareynayo hadaf looga dhiganayo si loo jabiyo qabkooda si loo jabiyo iska caabintooda si dadka kale ay cibro ugu noqdaan maalin kasta habeen kasta ciidana la geliyaa dadaa laga dhaawacaa dadaa laga soo xiraa laakiin dad aanan ka daalin waxay ahaayeen istaragalka ama kifaaxa ama iska caabintii halganka igu jira inay xuquuqdooda ay dhacsadaan way fiicnaa lahayd dadka kale ee deegaanada kale ah ee ayagoo guryahoodiisaan sheegnay oo annagaan xildhibaano u ahayn oo madaxweynaha loogu tegey ee sharci uu leeyahay lacag ka bixinayo inay intay is abaabulaan dulmiga iska dulqaadaan way fiicnaa lahayd intii ma aha dhul dowlad leedahay dhul asaga uu leeyahay oo sharci ah yaa waxaa looga qaadayaa baad wiilow madaxweynaha adeer u yahana ka qaadaya oo dhulkaa laisoo siiye leh waxaan ku arkaa social mediaha xildhibaanada dhulka la siiyo oo mucaaradka dhaliilaya mudaaharaad nabad waa niman dhul soo wada qaatay iyo gabdho dhul xaaraan ah oo dad masaakiina oo marasa oo dan yara laga kiciyey intay soo qaateen ee facebookyada taagan yihiin kuwaas damiir ma leh bini aadankana waxaa la yidhi hadday damiirka ka dhinto waa dhintay nin shaacira wuxuu yidhi inama alumamu akhlaaqun maa baqiyat in humuu dahabat akhlaaquhum dahabuu ummadaha nationska qaranku dadku waa akhlaaq dhismo iyo jidad iyo laamiyo ma ah waa qiyam waa values dadku waxay ku taagan yihiin maxaad qiimay dadki waxaas akhlaaq iyo qiyam iyo value baanta inay baan u yaqaanaan runta inay run u yaqaanaan xaaraanta inay xaaraan u yaqaanaan xalaasha inay xalaal u yaqaanaan dilka inay xumaan u yaqaanaan nabadda inay wanaag u yaqaanaan qiyamay dadka ku nool yihiin laakiin qof xaaraanta xalaal u tahay maskiin la barakicinayo ooynaya hantidiisa qaadanayo yaa kuu sheeganaya siyaasiyaan ahay facebook ka soo hadlaya iyo wasiirada maxaa dhahdeen kuwii cabdiraxmaan wasiirada cayda maa tiri wasiirada aflagaadada ee cayda kullet waa soo jawaabi doonaa markaa shirki jahaad dhamayn waana is yaqaanaan oo soo taagan iyo xasha ku hareeraysa marka dadkaas waa u tacsiinaynaa dadkii meesha ku dhintay wiilkii meesha ku dhintay labadii ku dhaawacantay xildhibaan faa'iisa ka warrami doonta oo naftooda qalqiil ku soo badbaaday oo taliyaha saldhigga booliska meesha yaasiin gene oo amray in la dilo wuxuu dhahay baasugo ku dhufta u dhahay gaarigeeda ma garad marka ayadaa sheegi doonta iyo wiilashii kaloo la joogay meesha taas intaasaan ka leeyahay marka shacabkaas waa saluud garaynaynaa muqaawamadoodii iska caabintooda waa dhiiro gelinaynaa kuwa kale maalin kasta la dhacaayane inay wax iska caabiyaan oo iska dhiciyaana ku dhiiro gelinaynaa oo isi isdhiibin oo isi dulliga aysan u dulloobin dhaca iyo boobka inaysan u dulloobin waxaan rabaa inaan waxyar ka idhaahdo sidii la sheegay khudbaddii madaxweynaha horta khudbadda madaxweynaha waxay noo caddaysay maxaa kumanaan askari habeen hore magaalada loo keenay maxaa jidadka loo xiray maxaa ciidankii dowladda oo dhan military iyo nisa iyo commandos iyo haram cad iyo wax oo dhan nala soo dul dhigay
sababta waxaasoo dhan loo keenay oo xaafadda sheekh shariif iyo xaafadaheena wala cabdikariin ani meeshaan joognay guriga ilinkaa lagu xiray gaari cabdibilaah ilinka waayid waxaasoo dhan waxaa la raadinaya daandaansi inaan annaga ka jawaabna ah marka waa isweydiinayna waxaan maxay yihiin cadaadiska intaan la eg muxuu yahay macnii ciidanka intaan la eg maxaa loo soo geli horta madaxweynaha nooga jawaabay muxuu nooga jawaabay wuxuu yidhi mucaaradka shabaab ay lamid yihiin dhiig banaysay ahayd waxaa la rabay annaga inoo daandaansiga aan ka jawaabno dagaal la dhaco dhiiggeena la xalaalaysto horta ha sheeqaa noo caddeeyey rasuulkeena alayh sala slam wuxuu yidhi arraa'id laa yagdib ahlahu qofka hogaamiyaha dadkiisa been uma sheego nin weyn a wuxuu ku leeyahay waxaan ogolahay in la mudaharaado haddaan la mudaharado waxaasoo kunoo ciidana maxaa u keentay haddaa in la mudaharado ogosha waxaasoo kunoo ciidana maxaa u keentay wuxuu leeyahay dastuurka dadku waa xor waa hadli karaan maxay dhallinyarada kugu xiran yihiin tobanaanka sacdii bajaajaa bil kuu xirani haddii la hadli karee ma dadka waxaa moodaamiya inay doqomo yihiin warkaaga iska maqlahay midda kaloo sheegay ma taqaaniin wuxuu yidhi mudaharaadka waxaa lagu soo aadiyey in la iiga banado doorashadii masabidka aheeda qof iyo codka asaga qof iyo coda intaas waxaa u bixina doorasho masabidaa la yahay qof iyo codaa la masabidana oo koonfur galbeed ka socotay oo asaga uu isku yahay mukhrij maxaa waaye soo saaraha actarka laacibka midka majaajiliistaha mise majaajiliistan madaxa ay furana ka ah isaga kama ah aadan madoobana muxuu ka yahay actarkii jilaay guddiga doorashadana maxay ka yihiin kuwa maaragtay isku xirxira qalabka alaabaha kuwa alaabaha isku xirxiro waay waa riwaayad waxa moogta riwaayadda waa inay actar leedahay waa inay majaajiliiste leedahay waa inay fanaan ka heysa leedahay mise guddiga doorashada fanaaniintaa dhahnaa fanaaniintii meesha ka heysaayo waaye ya riwaayadda ninka loo dhigaho meesha fadhiinayaa waaye xasan sheekh maxamed marka kulahaa taasay iga rabsheen kuyi mudaharaadka waxay iga soo aadiyeen xataa nin jabkiisa qarsan kara maaha ninka ragga waxaa lagu yaqaana jabkiisa inuu qarsada jabkiisoo la soo istaagay meesha marka ninkaas waa ku talageliyey dhiiggeen inuu banaysto maanta waxaa lay tusay 2005 inay tahan jeclahay 15 ala soo masaajidka sbeysiga ka hadla oo saan oo kale mucaaradka shabaab lamid yihiin dhaha waa la soo day doonaa saan oo kale soo dhaha mucaaradka shabaab lamid yihiin waa nin cuqdad ka qaba mucaarad wuxuu soo abaabulay dad yar oo hadda guriga sheekh shariif korgeeyey waan noo soo wadiyay anagii khayre iyo kulli waa naloo sheegay hadda malaamileydii inay nagu soo mudaharaadi rabaan waa naloo sheegay ay xaafadeen hor imaan rabaan kooxda malaamileydii si kale markii la yeeli waayey wasiiradii haddana xasan sheekho wasiirada oo caydana ku soo dar xildhibaanada dhulka dhacayna ku soo daran u mudaharaadaan haddaan kuusii sheega malaamileyda inta la soo aruuriyo aa guryaha la korgeynaa ma rabno sheekh shariif ma rabno heblow ma rabno ala leeyahay waa soo socotaa iyadani malaamiley la isku soo abaabulahay marinaayo horta meesha malaamileyda maanta ku abaabulahay waa meeshuu naga lahaa laysoo gurmado 1 kilomitraa lay jiraa laysoo gurmado meeshuu ka lahay waay maxtaa ninka ma xishoodo waa raggii shalay oo hiilada weydiisanayaanna ha laysoo gurmado culayska ha layga qaado cadaadiska ha layga qaado dadka u dhahayo waay dadka uu leeyahay waa cadow dhiiggiina dhiiggooda oo banaysanayo nin wax garta maaha annagane saa la sheegay mudaharaadka waa sabdi waa 16 xasheekhna 15 mandatekiisa maxaa ku dhacay waa dhammaaday annagii isaga isku midaana 5 beri ka bacdi waxaa waaye odayga waa shacab isku midaana bal ciidankaa fiirinaynaa inaan sharciyad iyo madaxtinimo iyo dastuur iyo wuxuu ku dhaqmayay awood siinaya jirin inay u hogaansama